madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo kuna la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Jubba ee caasimadda Suudaanta Koonfureed ayaa eedeyn u jeediyay madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira. Madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyayaasha maamulada ay ku fashilmeen in ay adeegyada muhiimka ah ay gaarsiiyaan bulshada ay maamulaan sida caafimaadka, waxbarashada iyo ururinta canshuuraha. Farmaajo ayaa tilmaamay in maamulada ay ku mashquulsan siyaasadda arrimaha dibadda oo aysan waxba ka qusaynin, waxaana uu tilmaamay in ay tahay wax lala yaabo. waxa uu sidoo kale xusay in madaxweynayaasha maamulada sidiisa oo kale ay doonayaan in ay la kulmaan madaxda caalamka, taasina aysan ahayn muhiim. Maxamed Axmed Xasan habboonay mahooyada gacan